waxaa sida caadiga ah markii ay soo dhawaato doorashada Soomaaliya ka dhex bilaabatay xildhibaanada xudxudasho markaas ay musharaxiintu ku kala horeeyaan. xildhibaanada ayaa loo sheegaa lacag dheeri ah iyo sidoo kale ballanqaadyo in la siin doono. haddaba waxaa la leeyahay kooxda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ololahoodii tooska ah bilowday iyagoo inta badan xildhibaanada ay u sheegayaan inay lacag dheeri ah iyo sidoo kale ballanqaadyo ka dhab ah ay siin doonaan haddii uu madaxweynuhu soo laabto. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kooxda u ololeysay ay isku dayayaan xildhibaanada intooda badan inay afduubtaan gacantana ku qabtaan sidii dhawaan markii kaarka doorashada uu dhacay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu noqdo qofka ugu horeeyay ee wareegyada ku soo baxa. kooxda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la soo shaacinayaa ilaa xalay inay wadeen ballanqaadyo iyo sidoo kaleete xildhibaanada dhexdooda inay shukaansi iyo xiriir la sameynayeen. haddaba Soomaaliya inta badan markii ay soo dhawaato doorashada waxaa xildhibaanada lagu bilaabaa arrimaha noocan ahaa. walow sanadkii u dambeeyay madaxweyne xasan sheekh oo ahaa qofkii ugu wanaagsanaa markaa dhaqaale ahaan la is odhan karo xildhibaanadii ugu badnaa ee markaa uu siiyay dhaqaalaha aysan waxba ka qabanin waxbana ka bedelin dib u doorashadiisa. sidoo kale Soomaaliya ayaa inta badan caado u tahay qofka mar la doortay in aan dib loo dooranin. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo sidoo kale sanadkan halkudhe ka dhigay inuu dib u soo laaban doono sidoo kale dib u doorashadiisa inay tahay mid muqadisa ayaa xudxudasho iyo sidoo kale ballanqaadyo fara badan kooxdiisu ay u wadaan xildhibaanada kala duwan ee baarlamaanka labada aqal ka tirsan. ilaa xalay ayaa la arkayay iyadoo kooxda ay isku dayayaan xildhibaanada intooda fara badan inay ballanqaadyo iyo sidoo kaleeta lacag dheeri ay u sheegaan. lama garanayo qofka maalintaas soo bixi doona balse musharaxiinta intooda fara badan ayaa isku dayayay inay xildhibaanada si kala duwan u xudxutaan sida maalinta ay kaarka ugu ridi lahaayeen. iyadoo xildhibaano fara badan lagu ogsoon yahay inay inta badan ay kala taabacsan yihiin musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha 4 sano ee soo socota ee dalka Soomaaliya, haddana waxaa la tuunsan yahay wax walba inay isbedeli karaan xilliga kaarka iyo sidoo kale lagu jiro teendhada gudaheeda. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saameyn fara badan ku leh markii la fiiriyo dhanka dhaqaalaha iyo sidoo kale waxyaabaha markaa uu isagu inuu soo qabtay uu sheegan karo maalinta hadal jeedintiisa uu sameyn doono. sidoo kale musharaxiin kale ayaa lagu tuunsan yahay inay dhaqaale fiican haystaan balse musharaxiinta dhanka dhaqaale la'aanta lagu tuunsan yahay ayaa walaac weyn ka qaba qaabkan dib u doorashada iyo sidoo kale xudxudashada laga dhaxwada ay bilaabeen kooxda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. maalinta ay dhici doonto 15 bisha May madaxweynaha in loo doorto Soomaaliya waxaa isbedeli doona waxyaabo fara badan oo hadda aan la sii saadaalin karin, balse kooxaha kala duwan ee musharaxiinta u ololeynaysa ayaa isku dayay inay xildhibaanada intooda fara badan qolo walba ay dhan u duwato. lama garanayo qofka sida tooska maalinta u matali doona inuu noqdo madaxweynaha 4 sano ee soo socota ee Soomaaliya, balse waxaa socdo kala aragti duwanaansho iyo sidoo kale xudxudasho u dhaxaysa xildhibaanada dhexdooda, balse wax walba waxay isbedeli doonaan markii doorashada si dhab ah loo guda galo.